daawadayaal ku soo dhawaada saxafi film su'aalaha baad ka dhigtaan barnaamijyada aynu kaga hadalno agtarada ka howlgala shirkadaha kala duwan ee dunida daafeeda ku yaala filimada soo saara sida Hollywood iyo Hollywoodka dalkaasi Mareykanka. Daawadayaal barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa ciidamada dalkaasi Mareykanka ee booliska ayaa waxa ay dacwad ku soo oogeen TJ Miller oo ajila iyo waliba shactiroole u dhashay dalkaasi Mareykanka. waxaana TJ Miller lagu soo eedeeyay in uu ciidamada booliska been u sheegay. Taliyaha ciidamada booliska magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in uu soo wacay booliska oo una sheegay naag tareenka la saaran in ay bamba wadato. ciidamadii marka ay baareen boorsada ay naagtaasi wadatay ayaa waxa ay arintaasi noqotay been. waxa una taliyuhu sheegay in la xiray jilaaga oo la marsiin doono sharciga maadaama uu arintan kascad u sameeyay oo ula kac. jilaagan ayaa caan ku ah Erlich Pachian oo uu ku jilay shactiro taxana oo magaceeda la yiraahdo Silicon Valley. waxa kale oo uu ka soo dhex muuqday filimo badan oo shactira oo uu ka jilay shirkadda filimada sameysay ee Hollywoodka. sidoo kale waxa uu jilay filimada ay ka mid yihiin Deadpool iyo filimka Cloverfield. Miller ayaa wajahaya ilaa 5 sano oo xabsi ah haddii lagu helo dacwadaha lagu soo eedeeyay aktarkan. sidoo kale garsoore ka tirsan garsoorayaasha dalkaasi Mareykanka ayaa soo saaray war saxaafadeed oo ku sugan magaalada Kentucky. waxa uu yiri 36 jirkan ayaa markii hore lagu eedeeyay inuu booliska been u sheegay oo uu yiri haweeney timo punni ale oo khamaar xiran ayaa waxa ay wadataa walxaha qarxa waxa ayna saaran tahay bas u kala gooshaya magaalada Washington DC iyo New York. waxa hadaba la sheegayaa in 36 jirkan uu haatan xiran yahay lana sugayo in la maxkamadeeyo maadaama uu been u sheegay booliska. wararka qaarna waxay sheegayaan inuu arintaasi uga gol lahaa maadaama shakhsigan uu yahay shakhsi majaajilada caan ku ah ka majaajilayso askarta booliska oo hadba dhinaca u yaacan, balse kiiskii waxa uu markii dambe isku shareeray cirka oo sharciga ayuu ku xadgudbay jilaagan TJ Miller. arintaasi waxa laga yaabaa in jilaagan haddii ay ku cadaato muddo 5 sano xariga loo jaro oo xabsiga loo taxaabo maadaama uu noqday jilaa aan ka fiirsan hadallada afkiisa ka soo yeeraya oo uu booliska inta wacay been u sheegay isaga oo argagax ku abuuray dadkii markaasi ka agdhawaa goobta tareenka ahayd ee booliska baaritaanka ka wadeenna waxa ka dhacay qalalaasa meeshaas ka dhacay oo dhanna waxa mas'uuliyadeeda qaadaya TJ Miller oo haatan xiran lana sugayo in la maxkamadeeyo maadaama uu haatan eedeysan yahay oo dambiga aan si toos ah loogu caldayn walow la sheegay in arrimahan uu sameeyay oo idil uu kulligood si ku talagala u sameeyay oo uu waliba inuu khalkhaliyay booliska magaalada New York. haddaba daawada barnaamijka aynu kaga hadlaynay TJ Miller oo telefoon u diray booliska magaalada New York kadibna uu sheegay in haweeney timo punni ale oo qamaar sidato ay bam la dhex saaran tahay baabuur u socda magaalada Washington DC kana baxaya magaalada New York. daawada barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeynay halka aad ka daawaneyseen waa Saxafi Films waxa barnaamijka inta diinay anigoo Caaqil Cabdi Faarax. haddaba haddii aadan ka mid ahayn baada ku xiran Saxafi Films fadlan barnaamijka like saar kadibna channelka Saxafi Films subscribe ku qabo kadibna gambale ka taabo si barnaamijyada ayagoo update ay kugu soo dhacaan markasta oo ay hawada soo galaanba. fikrigana waxaad ugu la wadaagtaa qaybta comments-ka ee Saxafi Films inagoo isku duuban oo Saxafi inta barnaamijkan lamada ku kuman daawada waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.